agaasimaha guud ee Banka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Xasan Carwo ayaa safar shaqo oo ujeedadiisu ahayd xogagal u noqoshada xaaladda shaqada iyo shaqaalaha iyo sidii loo dardargelin lahaa adeegyada uu Banka Dhexe u hayo bulshada Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay ku marayay qaar ka mid ah gobollada bariga ayaa maanta soo gaadhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer agaasimaha ayaa kormeer iyo indhaydhayn ku sameeyay dhismayaal xafiis iyo habsami u socodka Banka Dhexe ee magaalada Burco intaasi kadibna waxa uu kulan isxog waraysi la qaatay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta Banka Dhexe maamulaha Banka Dhexe ee magaalada Burco Cismaan Cabdilaahi Abakar iyo korjoogaha laamaha bari ee banka Cumar Xogogaal ayaa faahfaahin ka siiyay agaasimaha habsami socodka shaqada iyagoona si qoto dheer uga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin shaqaalaha Banka Dhexe oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo ka soo dhalaalay waajibaadkii iyo xilkii ay qaranka u hayeen maanta halkan waxa fadhiya shaqaalihii laanta Burco oo shaqaale hufan oo shaqadooda si karti leh u qabta waabay ku muuqdaan inay iska hufan yihiin aragtidooda ayaad ku arkaysaa marka haddii alla ilaaho wixii waanaa tusaale ayaa laga sugaya haddana aad iyo aad baynu ugu faraxsannahay agaasimo waxaan kugu soo dhaweynaynaa laanta Burco oo ka mid ah laamaha ugu waaweyn banka ama ugu taariikhda horeeyay banka Somaliland laantan oo imikana xarunna u ah korjoogida runtii sida maamuluhu sheegayna shaqaale anigu halkan laamihii aan madaxda ka soo noqday bay ka mid ahayd maamulaha ka soo noqday marka sida uu maamuluhu sheegay shaqaale aad iyo aad u hufan baa jooga oo aan wax ka imanin waxaanay ka mid tahay laamaha ugu dakhliga fiican leh ugu wax soo saarka fiican labay ka mid tahay dhinaca kalena agaasimaha guud ee Banka Dhexe Mudane Axmed Xasan Carwo ayaa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay isagoona halkaasi shaqaalaha kala dardaarmay warkiina waa ka wada dhirigsanahay Burco waa magaalo weyn way aad iyo aad weynaatay oo loo baahan yahay habka ay weynaatay in baankuna u kordho marka kulay waxa ku jirta qorshaha laanta ugu horeysay wax laga qabanaya inay noqoto Burco hagaajinteeda iyo qorshaynteeda shaqaale fiican baa tihiin sababtoo ah shaqaalaha hadii jeer waxaan ku qiyaasanaa dacwadahooda cabashada iyo dacwadaha iyo meelaha ugu yar baa tihiin taana waa ku hambalyeynaya taasi baynu ku gaarinaa horumar kharashka marka aad dhinto kharashaadka aad ku shaqeynayso haddaad yareyso waxa kordhaya dakhligii banka waxa kordhaya dakhligii dawladdu lahayd taasi adiga wax laga siinaya laakiin haddaad noqoto qof wax walba kharash kareeyo wixii loo dhiibay hadii alaab loo dhiibay jabinayo oo kursiga jabinayo oo computerka jabinayo oo maalin walba kharash galaya khasaaraha inta laga adunku ka go'an yahay waddanka ugu degan baynu nahay deganaanshaheedaas aynu ilaalinaynaa baan haddaynu nahay inagu waxaynu nahay dad isku family Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyal magaalada Burco